الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحول النبي عليه الصلاة والسلام diintan islaamka ilaahay uu ku soo dejiyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam, kitaabkan quraanka ah, ahadiitha nabiga alayhi salaatu wasalaam waa nasiixa, waa wanaag talin, waa daacadnimo, waa in waxa fiican la isu sheego, waxa xun la iska reebo. waxay nasiixa u tahay lillaah, waxaana nasiixa ugu tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala la kaliyeeyo la adeeco, amarkiisana la qaato aan la khilaafin. waxay nasiixa u tahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam, waxaana ugu tahay in la rumeeyo, la raaco sharciga ilaahay u soo dhiibana lagu dhaqmo, wadadu marayna lagu toosnaado, ilaahay intuu ku caabudayna lagu caabudo. waxay nasiixa u tahay madaxda muslimiinta ah, wanaagga waa in lagu adeeco, xumaantana laga waaniyo. in la khiyaameeyo oo la qisho waa in la iska ilaaliyo. in lala dagaalamo ama dadka lagu kiciyo waa in laga fogaado. waxay nasiixa u tahay muslimiinta guud ahaan, qof waloo muslimiina waa inuu noqdo naasix liikhwaanihi lmuslimiin, mid ka talinaya wanaagga walaalihiisa muslimiinta ah. faqad kaana nabiyuna calayhi salaatu wasalaam yubaayicu asxaabah على النصح لكل مسلم كما بايع جرير رضي الله عنه وارضاه. waxa nabigeenu ballan kaga qaadi jiray saxaabadiisii khayrka badnaa inay daacad u noqdaan, wanaagoodana ka taliyaan, hagardaamada iyo dhibaatadana ay ka ilaaliyaan qof kasta oo muslima. ayuha almuslimuuna cibaad allah, waxa maanta biidni illaahi subxaanahu wa tacaala halkan aynu ka soo jeedinaynaa talooyin ku wajahan guud ahaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaana dadka maanta loo bixiyey magaca siyaasiyiin, iyadoo aada moodo dadkii oo dhammiba inay siyaasiyiin wada noqdeen, oo siyaasad laga wada sheekaynaayo, oo la falanqaynaayo, oo iyada loo wada xamuuran yahay oo loo wada tafaxaydan yahay. talada koowaad waxa ay tahay, waxaynu kula talinaynaa qof kasta oo muslima oo maanta ku shuqlan waxaa siyaasadda lagu magacaabay, an yattaqiya allaha subxaanahu wa tacaala, inuu ilaahay ka baqo, wa an yacmala bidiin illaah, ilaahay diintiisa inuu ku camal falo. oo maadaama uu yahay qof la ilaahay baan rabbinimo u rumeeyey, nebi maxamedna rasuulnimo, islaamkana diin ahaan baa raalli ugu noqday, diintu waa inay xidho ay joojiso. ilaahay kaga baqdaan inay ilaahay xuquuqdiisa ilaaliyaan iyo waajibaadka iyo farallada ilaahay u saaray, inay ka fogaadaan waxa ilaahay u diiday, cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala soo jiidaaya. kamaa qaala allahu subxaanah: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. ilaahay wuxuu la hadlay dadka mu'miniinta ah, waxa rabbi uu leeyahay ilaahay ka baqo, si dhaba weliba ilaahay uga baqa, hana dhimanina idinkoo muslimiin oo ilaahay u hoggaansan mooyaane. mar walba ilaahay u hoggaansanaada oo toosnaada, si ay geeridu idinku timaado idinkoo muslimiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan. arrinka labaad wuxuu yahay, waxaan leeyahay mashquulka aada siyaasadda ku mashquulsan tihiin iyo ololaheedu iyo dabadhaca dad fara badani ay ka daba dhaceen, yaanu idinka mashquulinin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin diray, yaanu kalifin oo sababu noqonin inaad dayacdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisii iyo faralladiisii. qofka muslimka ah
إيمانك ودما استريهاي إسلام نمدي صناعي تهي مد وناكسا يقدم طاعة الله ورسوله على كل أمر وعلى كل شيء إلهي نؤديع نبي محمد نؤديع عليه الصلاة والسلام أيوكا الرئيسين يا أرين والبا إسقوه قان سمي قولك إلهي سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسا أمر كلا كهر مرننا ورك إلهينا ورك لا كهر رئيسيننا إلهي سبحانه وتعالى وحاول كدون وإذن للدوني وحك لها كدورننا أيها المسلمون عباد الله ترى الصدحات وحايتهاي يعني إذن كلفي سياسة يك هذا الكيدة يدح قلتان كيدو على ارتكاب ما حرمه الله عليكم من الظلم والاعتداء على الآخرين إن أتصميسان وحي إلهي دين ديديان إذن كلفي والظلم يحد قدبه ضدك إلا الظلم يحد قدب لغصة مهيه وحي إلهي دين ديديان وحن ويسياسد ما أنت وحي كمتاي الرماها وبدأنا الصابت وعددك إن إسحنتان حنتنا وحي كمتاي كبائرتي الدنبية واوين إلهي بان سبحانه وتعالى مؤمنين توديدي ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا والمؤمنين تايها إسحامننا متكير ميوتش عليها ينعنا walaalkii oo mayda hilibkiisa inuu cuno miyuu jecel yahay walaalkaaga ka maqan ee aan istifaaci karin ee aad xamanaysaa waxa uu tusaale u yahay oo u dhigmaa walaalka oo dhintay oo hilibkiisa aad cunayso waxyaaba ilaahay xaaraantimeeyo ay ka mid tahay annamiima dadka oo la isku diro siyaasaduna maanta waxay ka mid tahay waxyaabaha u darana keena diraalaha iyo alifsaad bayna annaas dadka in xumaan la dhex dhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum buu yidhi isagoo addoomihiisa la hadlaaya war ilaahay ka baqa dhexdiinana wanaag dhiga xumaanta cadhada iyo colaad iyo nacaybshahana ka saara waxa laaliyo waxaa sababaya arrinta noocaasana ka fogaada نبينا عليه الصلاة والسلام وحول كما في مسلم لا يدخل الجنة قتات وفي رواية النمام جنة قريمايو مددك يسكدره وهذا الكوكل قاضة ولا التنمد دحوذة لي حماية والنبضي علاد وقب الدله وناقي حمان يدباطو ددك وقب الدله waxyaabahaasi oo ay ka mid tahay in la iscaayo waad moodo mar haddii siyaasadii waxyaabaha laga hadlaayo in la iscaayo inay xalaal iska tahay qofka muslimka cirdigiisa iyo sharaftiisa ilaahay baa ilaaliyey nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummadiisa goobo badan buu uga sheegay ugagana khudbadeeyey ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ديقين يا مالكين يا عردقين وحرام بيدين كيه إنه قف كحد قد بقف كلا ديقيس مالكيس شرفتيس سيدا ما أنت وحران يدين كيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا تاقي مرك لنا من آيو توقع بشن بالحج سيدا وحران يدين كيه بلد الحرام مركات توقتان سيدا وحران يدين كيه waayo waxay yaqaaneen maalinta bisha iyo beledkaasi xurmo weyn inuu leeyahay xadgudubkana waa iska dayn jireen ama base waa yarayn jireen waana ta keentay bilaha inay raraan bilaha qaarkood xurmadooda iyagoo ilaalinaya ayay bil kale u rari jireen si ay bishaasi u dagaalamaan waxa ayda la yiraahdo waa faasiqnimo nabi maxamed baana sheegay calayhi salaatu wasalaam سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كان إلا عايا ووددي الصحدة هيدو لقب بحي وقرد جاح الله بحي
ووددي بدبادة oo laga baydhay ووددي halaaga iyo wadiiqooyinkii shaydaanku uu ka baaqayay dadka uga yeedhayay oo lagu leexday way muslim ila la dagaalamaano waa dhaqanka gaalada waxyaabahaas oo ay ka mid tahay qofka muslimka cawradiisa in la daba galo oo xumaanaha iyo khaladaadka si qarsoon uu sameeyo in banaanka la soo dhigo nabigeenu calayhi afdalu salaatu wa tasliim arrinkaasi waxa uu ka yidhi hadal aad iyo aad u adag waman tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim tatabbaca allahu cawratahu waman tatabbaca allahu cawratahu yufdixu walow fii jawfi beyti qofka muslimka qofka isku daya ceebihiisa inuu banaanka soo dhigo oo marada uu ka qaado ilaahay baa subxaana wa tacaala isagana cawradiisa banaanka soo dhiga iyo ceebihiisa oo dhan qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebtiisa iyo xumaanihiisa uu doono inuu muujiyana qofkaasi waa fadeexadoobaya walow dadka ha kaba dhuunto oo gurigiisa ha iskaba dhex fadhiyabe waxaa ka mid a waxyaabahaas qof muslima in laga yidhaahdo laga sheego waxaanu samayn ama waxaanu odhan ama waxaanu qabin oo aanu aaminsanayn وحول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال قف مسلم قفك كشيغة وحان آن كسقنين آن كسفيسنين إلهي مال انت قيامة وحا أدتيا هلك وكدعو ديعانك كدعا أهل النار عياذا بالله من النار إلهي بأي النار كما قنقلنا حتى يخرج مما قال إلا وحا ويريو كدح بحيو كنقناي وليس بخارج بور النبي عليه الصلاة والسلام كما نقن كرو ومن هدو قيامه دعو وحيا لوا حساب يا أبا المرين الباب كي توبدنا واحد ماي عيد لقيا لي عيد بان ما انت رالي قلنا يا محال سينا يا أنا ما جرتو الرنكاسي الباب بدي واحد مين اعلموا يا عباد الله أن السياسة لا تحل ما حرمه الله على عباده سياسة إنان مرنا حلال كدقهين وحا إلهي أدومي سو كحاران تمي يوحى رسولك وكوى الرمي إنه يا وح ممنوع كغفك مسلم كا قفك السميانا ما سياسها النقضة ما عد كلها النقضة والله إنان كل إبانهين وعد خلافة أمر كإلهي أمر كالرسولك إلهي باد دلينا يوتشبنا فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري دلق إياه الصينت وحد دش لك الصاري عدة أمر كيغ خلافته أرنت أفراد وحيتاي يا عباد الله احذروا الفجور في الخصومة والمخاصمة في الباطل دادكو آد بي أمور ميان وانا يدوديان waxna waa kala jiidanayaan qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo in marka cid arrin ay dhex timaado aanu sharciga ilaahay xidhin iimaankiisuna aanu joojin ee uu ku hadlaamo uu sameeyo wax kasta uu isleeyahay cidda waad iskaga celin kartaa iyo arrin kasta uu isleeyahay waad kaga adkaan kartaa arrinta noocaasi waxay ka mid tahay صفاتك منافقين تا لابتود واي مرنتاي قلبي قودا إيمانان كتشرين وحو نبي صفات كودا كداري وإذا خاصم فجر عيد هديا إسقبتان حماني الدنبي ودنبو الصمينية وحدا بمتشره ويا إيمانك حلي لها كمقا قفك مسلم كيددك مركا إسقبتان أمارنا يدحتي ما الدور إلهي أنك بقاهن سبحانه وتعالى إلهي إنه مقلي وأركي وحالكي سو الله الصعدنا نفتي سؤالي دريم هين قفك سوحو ياشا صفات كميدا صفات كي منافقين تا وحادي هذا السواء ورسول كان عليه الصلاة والسلام دبهانو كدقي إن قفك مسلم كان يعرم بعد اللي مدى وأقي هاي إنه كدودا وكمرمو هذا واقرانا يعني بادل تاي وحقانا يهين waxaanu lahayn buu sheeganaya
cidna wuxuu ku sheegayaa waxaanay ku eedanayn shay og yahay inuu baadil yahay buu difaacaya waxa kalifayaana waa arrin uunbuu doonayaa inuu meel mariyo oo uu socodsiiyo hadaf iyo ujeeddaanu doonayaa inuu gaadho bal dhagaysta wuxuu arrinkaa ka yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi cabdullaahi bnu cumar wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waman khaasama fii baatilin wa huwa yaclamu lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzic qofka baadil ku dooda arrin baadila arrin buu sheeganayaa aanu lahayn dadku ku qabsanayaa xoolahoodii arrin baadila buu u ololeynayaa isla markaana difaacaya waana garanayaa baadilnimadiisa lam yazal fii sakhati illaah qofkaas wuxuu noqonayaa qof cadhadii ilaahay ay ku socoto wahal yuflixu yaa cibaad allah man kaana fii sakhati illaah ma liibaanaya ma guulaysanayaa qof cadhada ilaahay ay ku dhacday ilaa goormay cadhada ilaahay ku soconaysaa xataa yanzica ilaa arrinkaa uu ka dhex baxaayo ilaahayna subxaana wa tacaala uga toobad keenayo abu daawuud baa xadiidkaasi wariyey biisnaadin saxiix arrinka shanaad wuxuu yahay yaa cibaad allah dadku haddii ay tartamayaan haddii ay arrin kala jiidjiidanayaan haddii dood iyo muran uu dhex maro haddaan ilaahay laga baqan waxyaabaha arrintaasi ay saabto waxaa ka mid ah in been cad la sheego oo geednaba aan loogu soo gaban in la bixiyo ballanqaado qofkan ballanqaadka bixinaya laftiisuba uu og yahay inay beentii tahay oo aanay ka dhabahayn nabigeennu calayhi salaatu wasalaam arrinka noocaasiya aada buu uga digay beenta waxaa la idhahdaa la iska ilaaliyo gaar ahaan beenta laga sheegayo wartabiyayaasha ee meelo fog gaadhaysa waa ka halis badan tahay beenta si hoose loo sheegayo ama dad kooban loo sheegayo iclamuu yaa cibaad allah ana alkadiba yahdi ila alfujuur ogaada addoomaha ilaahayow beentu qofka ka hadhi waaya dembiyada xunxun ee waaweyn xaggooda inay u jiidayso inuu sameeyo inay sabab ugu noqonayso fallaahu yucaaqibuhu bidalik ilaahay baa markuu been sheega ku ciqaabaya dembiye kaloo beenta la mida ama ka daranna qofkaasi inuu ku dhaco waa ka yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum walkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar walaa yazaalu rajulu yakdib wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba war beenta iska ilaaliya buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waayo beentu qofka waxay u sababaysaa dembiye kaloo waaweynna inuu ku dhaco cuquuba min allah qofkuna hadduu beenta dayn waayo waxaa lagu darayaa ilaahay agtiisa liiska beenaalayaasha bal qof ilaahay agtiisa beenaalo ka qoran ka warrama hal yuflixu haada kaasi ma liibaanaya abadan kalaa waxaashaa ayuha almuslimuuna cibaad allah beenta nooca u darani waa beenta uu sheego qof warkiisa dadku ay maqlayaan oo been aanay ka filan ahayn beenta u darani waa beenta dadku ay la kala dhaqaaqaan ee jihooyinka u kala faafta beenta u darani waa beenta maanta laga sheegayo warbaahinta nabigeennu calayhi salaatu wasalaam kamaa fi lbukhaari min xadiidi samura waxa uu ka waramay waxyaabo la yaab loo habeenada ka mida la tusiyey ilaahay baa usoo diray laba malag labadaa malag rasuulka waa kaxeeyeen waxyaabo fara badan baa intii rasuulku uu la socday uu soo maray rasuulku uu weydiinaya waxani waa maxay buu ku lahaa hase ahaatee umay jawaabahayn socdaalkaasi markuu dhammaaduu soo gebagaboobay ayaa waxyaabii nebigu uu arkay oo dhan malaa'igtaasi ay u fasireen waxaa ka mid ahaa wuxuu soo maray nin fadhi ah oo nin kalena maqasuu la dul taagan yahay qowlalkuu kaga qabanayaa ilaa qadaadku ku jeexaya sankuu kaga qabanayaa ilaa qadaadku ku jeexaya ishuu kaga qabanayaa ilaa qadaadku ku dilaacinaya dhinaca markuu dhammeeyo ee dhinaca kale uu wareego dhinacaasi waa bogsanayaa sidiisii horu ku noqonaya
markuu dhinacii kala soo dhameeyo haddana ku soo celinaya sidaasaanu arrinku ugu soconayaa ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamuhu dhacayo ninka maxay malaa'igtu ugu fasireen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay malaa'igtu ku yidhaahdeen alladii ra'aytahu yushaqu shidquh fakadaabun yakdibu lkadba fatuxmalu canhu xataa tabluga alaafaaq fayusnacu bihi haakada ilaa yowmi alqiyaama ninkii aad aragtee qowlalada la dilaacinayey nin beenaalaa buu ahaa oo beenta intuu sheego dabeetana dadku inta ay ka maqlaan ay ka wariyaan ay isu sii dhiibdhiibaan ilaa beentiisu ay gaadho meeshuu joogay meel aada uga fog iyo jihooyin ka durugsan sidaasaa loo ciqaabayaa ciqaabkaasi maaha cadaabkii naarta waa cadaabulqabri ciqaabkaasina sidaasuu ugu soconayaa ilaa qiyaamuhu u dhacaayo ayuha almuslimuuna cibaad allah haddaad maanta been sheegto adduunyadana waad ku fadeexadoobaysaa qabrigana cadaabkaasaa kugu sugaaya sidaasoo kale beentu waxay ka mid tahay waxyaabaha cadaabka jahanamee daran addoommadu ay ku mutaystaan fattaqu llaha yaa cibaad allah runtu waa sharaf runtu waa wanaag runtu waa badbaado runtu waa wanaag adduun iyo aakhiraba arrinka lixaad wuxuu yahay ee aan tala ahaan u soo jeedinayo dadka maanta siyaasadda ku shuqloon waxaan leeyahay saxiixuu niyaatikum warfacuu min himamikum fainama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa war niyada ha la saxo niyada ha la saxo oo sidee niyada ha loo saxo wax wanaagsan niyeysta wax wanaagsan haddaad niyeysato xataa hadduu kuu suurtogeli waayo oo awoodi ay ku gaadhsiin weydo ajarkiisa ilaahay waa kuu qoraya bisababi niyati saalixa niyada wanaagsan sababteeda war niyeysta ilaahay diintiisa inaad u nusraysaan oo aada kor u qaadaan war niyeysta xumaanta iyo sharka inaad la dagaalantaan war niyeysta cadaalad inaad ku dhaqantaan war niyeysta xalaal miirad inaad sifo ka dhigataan war niyeysta dhowrsooni aad ka dhowrsoonaataan xoolaha ay muslimiintu leeyihiin war niyeysta ummadda inaad waxu tartaan diinteeda iyo adduunyadeedaba ood u xaasilisaan masaalixda iyo danaha guud ee ummaddu ay leedahay nebigu wuxuu uhi wainamaa likulli imri'in maa nawa qof waliba wuxuu niyeystaa buu leeyahy himadiinana kor u qaada oo kor uga qaada magaca madaxeed in laydinku yeedho himadiina kor uga qaada oo ka sarraysiiya hankiina xoolo yar qofku mansibka loo dhiibay inuu ka urursado qofka muslimkaa inta badan hankiisu halka uu taagan yahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala gaadhsiiyaa adigu hoos ha isu dhigin waxunna ilaahay ha ka malaysanin rajo fiican ilaahay ka qab niyadaadana hagaaji maqsadkaaga iyo ujeeddadaadana mid saxa ka dhig ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa dhammaanteen baynu ina waafajiyo khayrkiiyo wanaagga sharka iyo xumaantana inuu inaga fogeeyo amaa bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah talada toddobaad waxay tahay waxaan leeyahay masaalixda iyo danaha guud ee ummaddu ay leedahay ha noqdo mid laga horraysiinayo danaha gaarka ah ee shaksiga ah faina almasaalixa alcaama xaqu llahi subxaana wa tacaala culimadu waxay dhaha xuquuqdu labay u qaybsantaa xaq ilaahay iyo xaq khalqi xataa marka laga hadlayo waxyaabaha bani aadamka ku saabsan ee cibaadaba aan laga hadlahayn xaqa ilaahay waa maxay waa wixii dan guuda ee ummadda ka dhaxeeya qofka xaqaasi ilaaliya masaalixda guud ee ummadda ka dhaxaysana ku dadaala qof xaqa ilaahay ka soo baxay buu noqonaya qofka dayacaana xaqii ilaahay buu dayacay qofka ilaaliyana ilaahay baa ilaalinaya qofka baabiyana ilaahay baa subxaana wa tacaala baabinaya almasaalixu alcaama danaha guud ee ummaddu ay leedahay iyo manaaficda ka dhaxeeya in la ilaaliyaa waa min annusxi lilmuslimiin
ومد كمذا نصحي وكتلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة إلا وكقارسيي ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا أي الشريعة الإسلامية وحي واجبي ساري مبضا وضد قارا لغو واجبي سببت لغو واجبي نايتاي إنه مضى مصلحة هذه منفعة هذا الجودة كتشرته وحياة فربضنا ولا ممنوعين وهي أمضى أي دنتا جودة يسيتشينيا لباتنا كوسو تشيدا يوي مصالح ذا يدناها هو وين يا أمضى أي لا هذا الدين توه الرئيسة مركا أمضى الدين تيدا وين لو إلاليه والله جاي إلاليه وحكستا أمضى الدين تيدا وحيالة يسيتشينيا أما دواعية أما ضعيفين آية وانا قهوص بقاية حمانتا يا منكر كان كورو قاضاية دين دبدت مصالح لي منافع ذا وين يوم مدن ويا هاي سطور وحكم ذا الأمن والاستقرار نبت قليدة يكلا الدنبينتا تاسوا نعمة وين وإلهي الدومي سا وقوم النشاكتين بيلا بدن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وحيابا إلهي الضوماء عبادك كم التيستيبي كم يطاع إنه إلهي سبحانه وتعالى نبت قليسي ربنا سبحانه وتعالى باهدا يقاتشدنا وكبيي وحيكو قاتشب بيلان إلهي سبحانه وتعالى أسي وحكستو وحييلايا مصالح ذا يدن تقوده ومضوا إلى ضحي ونبت قليدو كوا وقوا وين أي كم يطاعي مركا دينتي يا إيمانك يا إسلام لماذا لقي مادو وحنا قنا وحاران وان بنانين ولهذا با شريعه وحي حارنتي ميسي وحي وفر بدن سببت لو حارنتي مينا يطاي ان بدقليدا اي وحييليان هذا الكستا يا فعل كستا يا شرك كستا يا ارن كستا ونبدقليدا وحييليان ومد حارانه قفك السمينيان وان الهي كبغدين ارنتا كدنبابي وين اوغادو فتنada iyo sharka ka dhashana inuu dambiga u weyn isagu dhabarka u ridanayo waa inuu ogaado qofka muslimka oo noqdo miftaaxa khayr fura khayr waa inuu iska ilaaliyo inuu noqdo miftaaxa shar fura shar inuu noqdo waa inuu iska ilaaliyo arinka sideedaad wuxuu yahay maanta war oo dhan waxa laga sheegaa warbaahinta mid la arkay mid la maqlay mid la akhriyo ما جيران ور لا يراهدو ورka ayaan la baahinin cida ay taladu ka goodo ee madaxda leh ee culimada leh ee odayaasha iyo wax garad kale cidaasuna loo sheego iyagu go'aan ha ka gaaraan sida ay shariicadu dhigayso dantuna ay ku jirtaa ka yeelaan maanta waxa la xurriyatu saxaafa jirta waxa la wixii la arkaa ama la maqlo waa la baahinaya waxa mararka qaar kood la sii deynaya war iyo hadal nabadgeliyada khalkhal gelinaya oo dadka isku diraaya oo umadu inay isku dhacdo sabab noqonaya oo kala dambeyntu inay lunto iyo maamulku meesha inuu ka baxo sabab noqonaya arrinkaasina waa arrin ilaahay u diiday wa idha jaahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلهي وحده مركو ورسوق قارو دخلت سميه إلهي كورميا نبت قليلا كصابصان إيا بقاها إيا أمد مسير كذا إيا دنت قود مركبة ويفافين يا أنا مشرق يا مغرب بيكرديا دابا تنوح لقيا بإنه لبو دوركي ميدا وحقرد هين دابا تنوقات مواقف iyo go'aamo aan sax ahayn oo isagana dhibaato u geysta umadana waxyeelo u soo jiida markuu nabigu noolaa ilaahay wuxuu leeyahay inay faafiyaan ma ahayn inay nabiga kaleey salaatu wasalaam u celiyaan baa oo iraada waxa saa dhacay rasuulka ilaahay suu nabigu uga taliyo nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu dhintana ulul amri baa jira wa ulul amri naw'an ulul amri guna waa laba والعلماء والأمراء
ومدحدة تلada hayse fulinta iyo go'aanka leh iyo culimada dadka diinta u haysa ee maxaa xalaal maxaa xaraana maxaa sax maxaa khalad u kala sheegi karta waxa maanta ka socda warbaahinteena ee dadka siyaasadda ku abtirsanaya madax dhaqameed dhalinyaro dumar cid waliba ay ka hadlayso umada masiirkeedii marar badan si khaldan looga hadlaya wax sax ma aha ilaahay waa in laga baqo arrinka sagaaladan ku gabagabeynaya wuxuu yahay waa in si dhaba loo rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo xukunkiisa oo qofku si dhaba u rumeeyo wuxuu ilaahay doonaa inuu dhacayo waxaanu ilaahay doonina inaanu dhacahayn wuxuu ilaahay u qoray qofku inuu helayo waxaanu ilaahay u qorinna tab iyo xeelad iyo awood kastuu isku daraa inaanay gaadhsiinahayn waa inuu qofku aamino wuxuu ilaahay la damco khalqiga oo dhami hadday isu yimaadaan say ugu hor istaagaan inaanay ka hor istaagi karin oo aanay ka celin karin waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu u qorinna khalqiga oo dhami hadday isu yimaadaan suu waxaas u helo inaanu heli karin wanaag ilaahay kula damcay khalqigu kaama celin karaan doonista ilaahay baa tooda ka horeysa kana sarreysa awoodda ilaahay baana awooddooda maamusho ka sarreysa dhibaato ilaahay kuu qadarayna kaama hor istaagi karaan وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هدو إلهي دباتك قدروا كتابسيه إلهي موعدك لك مد القاضي كرته وإن يردك بخير فلا راد لفضله هدو إلهي خير وناكل الدولة مد دينادي مد الدنيا إلهي فضل كيسا يا خير كيسا علين كرتور استاي كرتا ما جرته حاسد كستا يا مد كستا كن عيبي ما هو استاغي كره يصيب به من يشاء من عباده وإلهي عد الدنيا دوميسا كمدا يوصي وقارسيا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وحي إلهي الرحمة يا خير يا وناق الدوميسا أفر أمقار كمدا عد قبصان كرتو عشان كرتا ما جرتو وحي إلهي عشدنا عد صوفر كرتا ما جرتو وكان نبي قال نورنتي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى واحد بحس عيد علين كرتا ما جرته وهو استاغي كرتا واحد دي هذا وانا بحنا عيد بحين كرتا ما جرته الأمر بيد الله الخلق خلق الله والملك لله والتدبير لرب العالمين في خلقه خلقي قولا وخلقه إلهي ما ملكنا إلهي باله إلهي با خلقه سمامله وح الله علي وحد دحوه كنا عيانا وإلهي سبحانه وتعالى حكم كيسي يوحي ربي سبحانه وتعالى وقدري قفك مسلم كارنت نوعا سيمرك الرمايو وحا ودونايو آدي سوى هولي مايو وورور يبلو آد ويدا يبلو كسيغا نفتا اسكا قادي مايو ودخل دنا ومري مايو ودد صحدا ينبو مريا وايا وحوغي هاي وسيدا بو الرميسياي hadduu ilaahay u qoray inuu helayo marka wada khaldan maxaa ku kalifayaba haddaanu ilaahay u qorinna meel kasta uu jibaaxo u maro inaanu helahayn buu rumaysan yahay marka qofka maslaxo iyo manfaco xalaal doonaya waa in qanaacada noocaasi qalbigiisa ay gasho yaqiintaasina laabtiisa ay degto sababna ay u noqoto wada fiican inuu u maro waxa uu doonayo oo uu iska ilaaliyo inuu u maro ودوينك إلهي سبحانه وتعالى وحارنتميي waxaa laga yaabaa inaanu helin waxa uu la guriga noqdayna uu noqdoon dambigii ka raacay xaaraanta iyo khaladka uu sameeyay ilaahay been subhanahu wa ta'ala weydiisanayna inuu inoo sugo amniga iyo nabadgelyada iyo kala dambeynta khalkhalka iyo khilaafka ilaahay inuu inaga ilaaliyo sharka iyo fasaadka ilaahay been weydiisanayna inuu naga hor istaago اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة